Halkan waa garoonka kubadda cagta ee Engineer Riso Stadium waxaa maalintii Jimcaha ee shalay baaqday muxaadaro taas oo lagu balansanaa inuu ku qabto umul balse waxaa arrinkaas diiday suufida kuwaas oo ku eedeeyay inuu yahay umul mid aan diinta waafaqsaneyn una gafay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxaana suurtagal noqon weysay inuu halkaas umul ku qabto muxaadaro dibadbaxyada ay dhigayaan suufida dartood waxaana laga dhigay maalinta Axadda ee biri. Dhanka kale waxaa war-saxaafadeed soo saartay wasaaradda diinta iyo awqaafta war-saxaafadeedkaas oo lagu joojinayo muxaadarada uu rabo inuu ka soo jeediyo umul garoonka Engineer Riso Stadium gabi ahaanteed in halkaas lagu joojiyo rabshado jira awgood. War-saxaafadeedkii wasaaradda diinta iyo awqaafta ee soo saartay ee madaxda dowladda inteeda badan ee isku raacday balse arrinkaas waxaa ka soo horjeestay ra'iisul wasaare Khayre kaas oo sheegay in aan la jooji doonin muxaadarada maalinta berrina la qaban doono. Haddii ay suurtagal noqoto in la qabto muxaadarada waxaa laga yaabaa in halkaas ka dhasho dibadbaxyo iyo isku dhac diimeed kaas oo laga yaabo in labada taageere ee suufida iyo kuwa kale ee taageersan umul ay gacmaha iskula tagaan kana dhasho dagaal diimeed kaas oo sababi kara dhimasho iyo dhaawac.